آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي قالقة أدياد بان الإسلامية صادوا أركي سامبا حالة شوغا ميلانو جنترالي dad fara badan baa oo qaxootiya bannaanka jooga isla mar ahaantaasina ku dhibaataysan hadday yihiin Eritreyaanka, Suuriyaanka iyo mataqaanaa Afrikada kale sida maaragtay Afrikada bari iyo Afrikada galbeedba waxaan rajeynaya si fiican inaad u aragtaan bannaankan u bixi doonaa si aad iyo aad u qaab daran oo u dhibaataysan ay dadku bannaanada u joogaan isla mar ahaantaasina ay u jiifaan dhaxanta kulaylka qabowga cunto la'aanta iyo rafaadka intaba gidaarada iyo agagaarka baanhoofka ayay ku qaataan waxaa meeshan jooga dad in fara badan isku dayay inay ka baxaan balse xuduudaha laga soo celiyey haddaba sida aad wada aragtaan meeshani waa ninkaas waad aragtaan wuxuu iibinayaa saase wax loo iibiyaa waad aragtaan meeshan waa bannaanka baanhoofka Milano Centrale ama xarunta tareenada Milano waxaan dadka reerkiisiin waa dadkii qaxootiga ahaa magangeliyo doonka ahaa isla mar ahaantaasina nafooga u soo haligay inay Yurub soo gaaraan ama ay wax moodeen haddaba saad wada arkaysiinba waxaa saa u buuxa meeshaad arkaysiin waa dadka qaxootiga ah se u fadhiyaan waad aragtaan se u joogaan waad aragtaan cid wax u qabanaysa isla mar ahaantaasina daryeelaysaa ma jirto marka xaqada dhabteeda aragtaan meesha gidar saasaa loo jiifaa waad aragtaan nolosha ka jirta waa kaas nolosha dhabta ka jirta waa kaas intii Milano maad aragtay moodaya inay janno taallo ama Yurub u soo tahriibo gidaarkaa sidaa loo jiifaa bannaanadaasaa loo jiifaa inaad ila aragtaan baan filayaa ilaa hadda waxaan raadinaya wax Soomaaliyana ma arko halkaasay iga muuqdaan waxa weeyaan magaaladu saasay u shidan tahay waa magaalo camiran waa magaalo caana haddana waxa weeyaan waad ogtihiin dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa badaha isu soo haligaya naftooda si ay halkan u soo gaaraan isla markaasna looga sheekeeyay in Yurub janno taallo saad arkaysiin gidaarada la jiifaa wax khayr ma yaalo meesha waxaan leeyahay saw ogaada oo ka digtoonaada ma aragtay intaad ogaan kartaan xaqada dhabta raadiya maalin wanaagsan